makhluuqaadka duurjoogtu waa mid ugu tirada badan leh qaaradan Afrika waxaana la sheegaa meelaha ay ku siyaarsan yihiin ee dabiiciga ah inay ka mid tahay waa kastoo baliya iyo gobol kastoo dhaca waxa ay ka bedelaan nolosha qaar ayaa dhalanaya oo haatan ku soo beeriya dunida qaarna way ka tagayaan oo dhimanaya deegaankan oo dhaca dalka Zambia duurjoogta ugu tirada badan leh waxa la sheegay inay tahay shimbiraha markay dareemaan gobol dhac way axraabayaan daanyeerka ayaa aaga biyaha baaqi ku sii ahaanaya hoygiisa inta badan waa geedaha digirinka oo ka mid ah shimbiraha balse aan duulin waxa cunaya daaqisi ugu dambeeyay maanta iyaga libaaxyadu way daawanayaan oo kaliya sidoo kalena waqtigooda ay sugayaan tan macnaheedu waxay tahay maalintii inta ay ku gabagabowday makhluuqaad ka mid ah duurjoogta ayuu haatan waagu u baryayaa macnaheena habeenka u gaarsada halka qaarkoodna ay ku carraabayaan meelaha ammaanka ay naftooda ku aaminaan qaar kale ay markaas u soo baxayaan socod iyo qaraabtag malaayiin xayawaanada oo in ayshan qabanahayn habeenkii mugdigu marka uu daboolo dhulka waxa soo baxaya qaar weeba u sahlay socodka arreedik waxay ka qaadayaan calafkooda oo kaliya makhluuqaadka habeenkii dhaqaaqa xasharaadka ayaa ugu badan iyo bahalaha hoose ee masasku ka mid yihiin waa 10 habeenimo haatan dayax waa 14 iftiin badan oo hawada ku jiran habeenku waa caawiyaha dilaayada xiliyadan oo kale waa xiliyada libaaxu ugu firfircoon yahay balse waxay ka jeclaan lahayn iyadoo gudcura rabshada ugu badan waxay ka taagan tahay haatan iftiinka dayaxa waxaana caadadu saacadiisa haatan midan uu gaarsan lahaa adeerada waxay la xarbiyaysaa oo la baxadagaysaa raxantan libaaxyada ah qabashadii qaban lahaayeen ugaadhoodii xigtay waxay u fadhiyaan ugaadha iyo xayawaanaadka biyaha waxa gees walba ka imanaya xayawaanaad ha noqdaan kuwa ugu khatarta badan waxa ka mid ah xayawaanaadka barta biyaha yimi xoorka run ahaantii waa mid aad u khatar oo aan waxba ka gurahayn libaaxu xoorka nooca loo yaqaan hoos madowuhu waa mid habeenkii u gaarsada sidoo kalena maqaarkiisu aad u adag yahay bilaadanka wax yeeli kara xayawaanadu ka mid yahay raha iyo insectiska ama cayayaanaadka ayaa waxa isku qariyaan waqtiyada qalaylaha ciidda aadka u hooseysa waxa wax badan ka saacida xoorka noocana urtiisa oo ah mid aad u khatar ah caawinaysana waa inay helaan maalin walba cunto miisaankeedu u dhigmayo 2 pound maalin walbana waa inay ugaarsadaan si ay u sii noolaan karaan kuwani waxay socdaali karaan ilaa 25 meel habeenkii iyagoo raadinaya cunto sidoo kale waa qaar aad u adkaysi badan maqaarkooduna adag yahay kuwan xoorka ah kaliya tukumaha ugaarsiga cayayaanka xoorka oo kaliya balse waxa jira shimbiro duulaya habeenkii
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. lix ruwaaye oo haatan dhashay ayaa ku soo biiray. waqtigooda ugu badan ee maalintii waxay ku jiraan godka, habeenkii inay halkan ku ciyaaraan way xiiseynayaan. waxay qaadanayaan waqtigooda ciyaarta. waxaa la jaaraa dhibaatadan ruwaaga qaar daanyeera.